gurmad qaran ayaa magaalada Muqdisho waxay ka wadaan dadaalo la isugu raadinayo qaar kamid ah dadkii eheladooda ay wali ay ku maqayeen burburka qaraxii xoogana ee ka dhacay Soobe. Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warkan faafahinaya. Salaamu calaykum. waa gurmad waxa kula hadlaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku hadlaya telefoon gaar ah oo loogu talagalay in lagala xiriiro guddiga gurmadka degdega si loo baadi doono dadka eheladooda ku waayay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay Soobe oo ah goob aad u zaxmad badan kuna taala magaalada Muqdisho. xaruntan ayaa loo qorsheeyay inay ku shaqeeyaan dhalinyaro isku xilqaamay inay wax u qabtaan dadka xasuusaha mahadhada ay ku reebtay weerarkii isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo waxa uu booqday xarumaha caafimaadka ee la dhigay dadka dhaawacyada qaba waxaana uu sagootiyay dad badan oo dhaawac ahaan loogu qaaday dalka Turkiga isagoo dhalinyaro badan kula hadlay xarunta gurmadka degdega uu ka socday. ku bixiyay inay dadka waalahooda dhaawac ahaa shalay dhiiga siiyaan iyo idinka oo ilaa maalintii wax dhaceen u taagan habeen iyo maalin oo qaadaya dadka dhibaatada ku dhacday waalidiintooda iyo dadka maqan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa. shabaabna waxay u socdaan dalkan inay tirtiraan, waxay u socdaan sida ay daraad sameeyeen inay tirtiraan shacabka Soomaaliyeed. waa cadowga shacabka Soomaaliyeed. waxay u socdaan mustaqbalkiina inay baabi'iyaan. waxay u socdaan dalkan inay ka dhigaan dawlad la'aan oo adduunku naga cararo oo aan noqono bahalgaleen mana ka yeelino. goobtan waa goobta ay ku shaqeynayaan dhalinyaro isxilqaamay hawsha ay qabanayaan waa hawl adag. dad badan oo reerkoodii iyo dhallinyaradoodii ay kala maqan yihiin ayay diiwaan gelinayaan gargaarna ay u sameynayaan. waxa sidaasna la wadaagay Shaafici Cabdullaahi oo ah wiil dhalinyaro ah oo sida uu sheegay hawshan abaabulkeeda lahaa. runtii hawl waxa dhacday musiibo dhacday waxa la dhigi karo dhul gariir baa dhacay arin aad u foolxun baa dhacday laakiin waxaana dhaqaajiyay waxay ahayd ma fiirsan karno mar saaxiib hadhiin qof walba hadhiin meel walba guri kasta ay tacsiitiile tiya waxay nagu dhiirigelisay inaan is agaasino oo bal intii karaankanaga aan qabano dad badan walaahow walbahaar meelaha ku jiifay kuwaas inaan u helno xog ah qofkii inuu dhintay iyo in laga samri karo iyo inuu nool yahay inuu dhaawac yahay marka dadkii in la caawiyo ayaa horta koow nagu dhilisay. intii aan ku sugnayn xaruntan waxaa goobta soo gaaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxaana uu la sheekaystay dhalinyarada shaqada ku jiray isagoo telefoonka kala hadlaya dadka xarunta soo wacaya. Abuukar Cilmi Nuur مسجل وين؟ داديس داد شك قياستي inta shaqadan ay socotay waxa goobta la soo gaarsiinayay gargaar kala duwan oo la doonayo in la gaarsiiyo cisbitaalada dadka ku jira waxaana ay ka koobnaayeen dhar raashin iyo sidoo kale biyo la doonayo in dadka loo qaybiyo. dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee ay la kulmeen dhalinyarada hawsha ku mashquulsaneed waxa ay nala wadaagaysaa Muna oo kamid ah guddiga gurmadka degdega. wallahi guud ahaan markaan aan sheego waxa iigu yaabka badnaa wax aad ii xanuun badan ahayd oo aad ii danqinayo in hilba yar ilmo yar inta soo aruursadaan ay dhahaan hooyadeen waaye baaka ku soo qaataan yani wax la malaysan kari ma ahayn iyo qof dhan oo sawiran aad arkaysaa sawiran haddana marka uu tagto dambas noqonayo marka wax xanuun badan ahayd runtii wax aan daraasayn karna ma ahan aad ay runtii noo gubaysaa. dhibaatada dadka intooda badan meesha ka soo gaartayna dhalinyaro ahayd ee u badnaayeen jidka aan ka heleynay isbitaalada aan numberska ka heleynay iyo da'da inta u dhaxaysay kulligood dhalinyaro u badnaayeen. xubno ka tirsan guddiga gurmadka degdega ayaa inoo sheegay in dadka xarumaha caafimaadka la dhigay ee qaba dhaawacyada iyo ehladooda ay u baahan yihiin dhaqaalo iyo raashin ay noloshooda ay ku maareeyaan hawsha